talada koowaad aan runtii aan kula wadaagayo waxa weeyaan qofna ha ku qiimeynin muuqaalkiisa. qofka muuqaalkiisa marnaba ha ku qiimeynin. dadka aad la nooshahay ee la macaamilayso ee nolosha marka aad la wadaagayso ee saaxiibadaada iyo qaraabadaada iyo cidda kale aad baranaysaanba ama aad waxbarashada iskula jirtaan ama aad shaqo wadaagta tihiin muuqaalka ha ku qiimeynin. qofku asagoo yar ayuu noqon karaa qof caaqil ah. qofku asagoo weyn ayuu noqon karaa qof caaqil ah. sidaa daraaddeeda mararka qaar mididu waxyaabo fara badan oo aysan goy karin ayaa waxaa jirta inay sakiintu jarto. marka inaad aad u fahamto muuqaalka qofka aad ku qiimeynin aad ugu didaal. Amitabh Bachchan waad wada garanaysaan waa aktar dalka Hindiya u dhashay. taajiriinta waddanka Hindiya kaalinta koowaad ama labaad ama saddexaad baan qiyaasaya mid buu ku jiraa. maalin buu maqaayad soo galay. maqaayaddii markuu soo galay baa waxaa dhacday in dadkii oo dhan ay fadhi u istaagaan marka laga reebo hal qofood. aad buu ula yaabay. ninkiibuu imaadaba waxuu ku yidhi niyahow filmaanta ma daawataa? markaasuu yidhi maya. waayahay Amitabh Bachchan ma garanaysaa buu yidhi. mayuu yidhi haddane. kadib wuxuu bilaabay marka Amitabh Bachchan inuu ninkii isbaro. marka uu sheekadiisa dhameeyey ayuu ninkii su'aal weydiiyey yidhi adiga qofka aad tahay ii sheeg. ninka wuxuu ku jawaabay magacayga waxaa la yidhaahdaa Rahan Tata. Rahan Tata markuu magacaa maqlaba Amitabh Bachchan ninkii salaam buu u saaray. waayo ninkan iyuu yahay marka Rahan Tata waxaa jira shirkad loo yaqaano Tata Group. Tata Group 160 sano ku dhowaad ayay ganacsigeedu shaqaynaysaa. 2024kii bishii 7 ayay nambar baaritaan ku sameeyay shirkadda loo yaqaano Tata Group. laakiin xilligaas waxa ay investment sameeyeen 160 bilyan oo lacag ay invest gareeyeen. income-ka sanadkii soo galay waliya shirkadahan Tata Group 400 oo bilyan oo dakhli waaye. sidaa daraaddeeda marka ilaa 30 shirkadood waaye ninka ugu sarreeya shirkadda loo yaqaan Tata Group ayaa loo yaqaan Rahan Tata. ninka uu la kulmo marka ninka loo yaqaan Amitabh Bachchan ninkan buu ahaa. marka qofka muuqaalkiisa marnaba ha ku qiimeynin. dadka la macaamil lana dhaqan la fadhiiso noloshaada marka wixii ka soo baxa marka ku qiimay.